بسم الله. السلام عليكم. kusoo dhawaada mar kale iyo casharadeenii inoo socday. taariikhda maanta waa 19 bisha 2 2020. casharka saddexaad koorsadeeni A+ Compatia ee barashada kombiyuutarka heerka hoose ee bilowga ah. mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay input devices, output devices, process devices iyo storage devices. intaan hoos usii soconin kombiyuutarka sida aadanahoo kaleento maxaan ku yiraahdaa wixii la geliyo unbaa laga fishaa. kullu inaa'in bima fihi yutrax wixii ku jiro unbuu soo celiyaa. marka bini aadanna waxaan leenahay 6 dareemo oo aan xogaha iyo macluumaadka naga baxsan aan ku helno, sida maqalka, aragga, urta, taawashada iyo wixii la mid ah. kombiyuutarkana asiina marka wuxuu leeyahay marka qaab uu xogaha ku helo, ay xogaha banaanka uga yimaadaan ay gudihiisa ay ku galaan. laakiin asiga ma ahan mid maaragtay dareemaha ibnu aadamka kaleento ma ahan oo wax asiga iskiisa ka yimid ma lahan oo cunfi iyo maaragtay dareen iyo xasaasiyad asiga ka dhalanaysa kaligiisa ma lahaanayo, isma daarayo, isma daminayo kaligiisa. in la programmeeyo oo laga shaqeeyo oo lagu suubiyo maahane amarkaas la siiyo maahane maahan wax asiga kaligiisa is amrayo ama iswadaayo ma ahan kombiyuutarka. laakiin markastaba xog ayuu u baahan in la geliyo. marka qaababkii lagu gelin lahaa lagana soo bixi lahaa sidoo wax u qaban lahaa waayo wax aan baranayno. cashiradeena waa isku xigxigaan. marka qof kasta qofka ugu horeeyo haddii aad tahay ama muuqaalka ugu horeeyo aad aragto haduu yahay fadlan gadaal u noqo casharadii kaleento si aad ula qabsatid. waa isku xigaan casharadan midka kaleento wuu ka dhalanaa. okay. input devices waa qalabka ama aaladaha loo isticmaalo in xogaha sida dokumentiga, qoraal, maqal, video, sawir iyo wixii la mid ah lagu geliyo kombiyuutarka. waxaana ka mid ah keyboard, mouse, joystick gameka loo isticmaalo, scanner, microphone, digital camera, barcode reader meelaha ganacsiga kan oo dhiida la sayo gacanta lagu hayo oo wax la marsiyo waay iyo wixii la mid ah. output devices waa qalabka loo isticmaalo in xogaha kombiyuutarka ku jira lagula soo baxo. waxaana ka mid ah monitor, screen, display device. saddexdaba dhawaaqu bay ku kala duwan yihiin laakiin waa isku macno. waa shaashada wax laga daalacdo ee kombiyuutarka muuqaalada ku soo gudbiso. printer, plotter, projector waa naqaana dabcan projectorka, headphone, speaker iyo wixii la mid ah. process devices si guud waa qaybaha qaabilsan ama qabta howlaha ka dhaca kombiyuutarka dhexdiisa. waxaana ka mid ah uguna caansan CPU-ga ama Central Processing Unit. marna waxaa lagu tilmaamaa maskaxda kombiyuutarka, howlwadeenka guud waay. waana waxa ugu muhiimsan qaybaha ay ka kooban tahay motherboardka ama si guud kombiyuutarkaba qaybaha ka kooban yahay. qaybta ugu muhiimsan waa CPU-ga, maskaxda. ibnu aadamka wax kastoo maskaxda la ama maskaxda ka jiraan maskaxdooda ay hooseyso meelna ma gaaraan, dadna ma gaarsiiyaan. storage devices marka ayagana waa qalabka qaabilsan in xogaha kombiyuutarka ku jira lagu kaydiyo. waxaana ka mid ah hard drive, DVD, CD, USB drive, SD card, floppy iyo wixii la mid ah. casharadan hadda waxyaabahan aan qaadanayno si guud waay. markastaba marka si dambeeyso gudaha u sii galeena marka si dambeeyso gudaha u sii galeena. tusaale ahaan hard drive waa maxay, DVD maxay tahay, maxay u taagan tahay, CD muxuu yahay, muxuu u taagan yahay, USB mid walba heerarka uu soo maray waxa uu yahay qaadan doonaa marka ilaa iyo wax maantadan socda up to date ka ah aan ka soo gaarno.
marka waa muhiim in markasta aan isla socono fiiro gaar ah waxaa jira kuwo qalab ama aalado isugu jira ama isku wada ah input iyo output device yani waa hal shay input iyo output isku yahay tusaale waa hal shay oo isku ah input iyo output device markii la rabana waxbaa lagu geliyaa markii la rabana waxbaa lagula soo baxaa tusaale marka sida touch screen smart TV set top box iyo wixii lamid ah hada touch screen ka waa kana yani idaha hada isticmaalaya waxna waad ku gelinaysaa waxna waad kula soo baxaysaa shaashadii waad taabanaysaa iyadii ayaa wax walba ku soo saarayso smart TV-yada casrigan waa sidoo kaleeto sawirada qaar ayaa idinku qaar ka mid ah waxyaabaha aan soo qaadanay qaar ka mid ah sawirada input iyo output devices input devices waxaa ka mid ah keyboardka waa kana sawirkiisa waa naqana dabcan laakiin haddana si extra ah maadaama wax walbaba aan from scratch hoos aan kasoo bilaabayno marka saasaan ka wadaa qofkaan aqoonin ama ku cusub tahay ama qaar kugu cusub ku jiri karo inaad la socotid mouse-kii joystick game-ka lagu ciyaaro waa kaasa gacmaha game-ka scanner-kii webcam-kii microphone-kii output devices kuwa xogaha lagula soo baxo computer-ka ee macluumaadka gudaha ku jira adiga ku soo gudbiya ku siiya waxa kamid ah waa kan ugu horeeyo monitor-ka ama maaragtay screen-ka display device-ka maaragtay muuqaal soo gudbiyaha printer-ka waa kana speaker-ka waa kana wixii gudaha ku jira bay ku soo gudbinayaan headphone-kii projector-ka waa kaasa marka qaar kamid ah ayagana muuqaalada processing devices si guud marka wax kasta computer ku jiro waa dabcan howl un bay u taagan yihiin laakiin si gaar ah ninka ragga ah waa kana howlwadeenka guud ee computer-ka nool oo dhan xataa dadka ibnu aadanka inta aan xataa nool maskaxda meeshu ay kaga jirto ayuu kan kaga jira computer-ka waa howlwadeenka guud ee computer-ka CPU-ga kan waa motherboard-kii hooyada dhameed oo wax walba isku haysay ama calooshii dhameed wax walba ay ku jireen waa la dhihi karaa memory-ga sigan maaragtay wuxuu u dhexeeyaa CPU-ga iyo maaragtay mass storage-ka hard drive-ka ayuu u dhexeeyaa xogaha waa sida ku meel gaarka ah ayaa lagu keediyaa oo wada qaadan doonaa iyo basis mid walba gooni u qaadan doonaa insha Allah laakiin markaad maaragtay midkan CPU-ga ama central processing unit-ka laga soo gaabiyey si gaar ah isha ama saaxiib ula noqo qaar ka mid ah marka sawirada storage devices-ka waa kuwan ayagana ultra SD card memory card internal external hard drive kan waa internal kan waa external key pen drive ama USB-gi floppy DVD asocod insha Allah dib u eegis dhaqso ah marka maadaama waqtiga aan ku xisaabtamo ma bobsinaya maanta waxaan soo qaadanay magacyada aaladaha computer-ka wax lagu geliyo lagula soo baxo hawsha ka dhex qabta lagu kaydsado xogaha waxayna kala ahaayeen sida input devices waxaa ka mid ahaa keyboard mouse iyo wixii la mid ah output devices waxaa ka mid ahaa monitor printer projector iyo wixii la mid ah process devices waxaa ka mid ahaa CPU central processing unit iyo ugu dambeyn storage devices ayagana waxaa ka mid ahaa hard drive DVD CD iyo wixii la mid ah insha Allah horta intaan gabagabeynin cashiradan qaar badan ereyada badan dabaqooda ama sheegidooda ama muuqaalkooda nagu soo noqon doonaa laakiin qaabkii hore ka duwan si kastaba wax kasto dhagahaaga indhahaaga ku bato maskaxdaada iyo xusuustaada u sii gudbisaa iyo aqoonta u leedahay ayaa sii bato marka fadlan la wadaag asxaabtaada iyo halkaaga rukumo guji subscribe-ta iyo like-ta ra'yigaagana noogu reeb qaybta hoose ee faalada YouTube-ka tacliin cusub mahadsanidin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته